السلام عليكم أرday soo dhawaada waa Macallin Maxamuud darsigan waa darsigan shanaad wuxuu ka mid yahay casharadii taxanaha ee ku saabsanaa luqadda Ingiriiska aynu ku soo post gareyn jirnay platformyada uu leeyahay Cilmi Academy maanta waxaan baranaynaa dhowrkaas eray ee meesha nooga muuqda eray koowaad waa banana waa moos okay markay badan yihiin waxa dhaysa bananas I love eating banana waan jeclahay inaan cuno mooska banana midda labaad waa bread waa roti okay bread roti we eat bread in the mornings roti waxaynu cunaa subaxi cake waa doorsho okay doorshadan la sameeyo macaanka badan baa la yiraahdaa cake I love to eat cakes waan jeclahay inaan cuno doorshada chewing gum waa xanjo labadaas eray ee chewing gum markii la kala saaro chewing waxay noqonaysaa rugitaan gum waxay noqonaysaa cirid okay chewing kaliya meel ku qoran daarta chewing waxay noqonaysaa rugitaan please chew the food very well cuntada si fiican u rug gum waa cirid marka chewing gum haday israacaan cirid iyo rugitaan way ka tagaysaa waxay noqonaysaa xanjo flowers waa ubaxyo milk waa caano sweets waxaa la yiraahdaa walxa macaan okay sweets waxaa kaloo la dhihi karaa ninaca marka sweets it's not the giving sweets to the children is not healthy ina ilmaha maaragtay walxa macaan siisid caafimaad ahaan u wanaagsan sweets waxyaalaha macaan waa la dhihi karaa waxaa kaloo la dhihi karaa ninaca waxyaalaha noocaas haddii cuntada ka hadlaysid this food is delicious ayaad isticmaali kartaa oo ah cuntadaani way macaan tahay delicious midka kale waa apple waa tufaax an apple a day keeps the doctor away maamaha ayaa ahayd an apple a day keeps the doctor away yani qofkii maalin walba xalaab tufaax cuno isaga dhakhtar isma arkayaan waa basically caafimaad ahaan ayuu aad u wanaagsan yahay apple waxay noqonaysaa tufaax saddexdan goonida saaran waa saddexda waqti ee cunooyinka la kala cuno midda koowaad waa breakfast waa quraac okay breakfast waa cuntada la cuno subax hore ee quraacda ah lunch waa cuntada la cuno duhurkii ama qadada lunch dinner waa cuntada la cuno fiidkii ama cashada marka breakfast waa quraac lunch waa qado dinner iyaduna waxay noqonaysaa casho waxaa kaloo jirto brunch waa brunch waxaa waaye maaragtay qofkii quraacdii qadada isku darsato sida ay la tagtay 5 saac amal baa wax cunay 5 saac quraacna ma ahan qadadana ma ahan waa wixii la isku dhex jacburiyay waxaa la yiraahdaa brunch ama haddii kale quraacdii qadada isku dhex dartay hal weel canjeero meesha ku taalay bariis baa isku darsatay gabba ka siisa waxaa la yiraahdaa brunch casharkan inta ayuu ka yahay thank you so much thank you for listening god bless you and stay safe